munaasabad lagu sagootinay qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adaha dowladda Soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay dalka Itoobiya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya danjiraha dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale Jamaaluddin Mustafa Umar danjiraha Itoobiya ee Soomaaliya ayaa munaasabada ka sharaxay deeqdaasi waxbarasho isagoo bogaadiyay dhalinyarada waxbarashada u aadaysa dalka Itoobiya markale waxaan farxad weyn ah in aan kala soo qayb galo munaasabadan sanadka 2019 iyadoo ay sanadkan ka duwantay sanadadii hore sababtoo ah jaamacadan waa jaamacad public service-ga yani ku aad ugu tunweyn shaqalaha dawladda ee aan siin jirnay sanad walba iyadoo sideeda tahay sanadkan waxa ku soo biiray shaqalaha baarlamaanka marka waxay tahay farxad kale jaamacadan waa jaamacad balaaran 20 sano ka hor 98 ayaan ka qalin jabiyay bachelor ka hore jaamacadaas ka qaatay Ethiopian Civil Service University wasiir dawladda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ardayda u hambaliyay waxaana sidoo kale uu mahadceliyay dowladda Itoobiya isgarab istaageeda dhinaca deeqa waxbarasho anaga hadaan nahay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare anoo ku hadlay magaca wasiirka iyo wasaaradda oo dhan waxaan rabaa marka hore inaan idinku hambaliyayno fursadan aad hesheen oo ah fursad ahayd u dhaxaysay dhammaan shaqaalaha dowladda ee Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradaha ama executive branch-ga iyo baarlamaanka waxaan rajaynaynay sanadkan run ahaantii oo ku soo kordhay ahayd inaan aragno shaqaalihii baarlamaanka oo ayagana ka qayb qaadanay waxa marka sharaf noo amaanta halkan inaan goobjoog u noqono inaan maalin kale oo runtii saaxiibtinimada nagala dhaxaysa dowladda Itoobiya iyo walaaltinimada halkan aan ka muujinayno sida la socotaan dowladda Itoobiya ma aha kaliya scholarship-kan ay ardayda shaqaalaha dowladda aadaysa waxa jira deeqo kale waxbarasho ilaa 300 oo arday gaaray iyaga insha Allah ta'ala Itoobiya ayaa ka mid ah wadamada fursadaha waxbarasho ay ka helaan ardayda Soomaaliyeed taasi oo sii xoojinaysa xiriirka darisnimo ee ka dhaxeeya labada dawladood. Cali Abdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.